Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your English teacher Khalid Yanis Asman. Welcome to lesson 6 oo casharkaygii lixaad. Weli waxaynu ku jirnaa taxanihii casharadii taxanaha ahaa ee aynu ku dhisaynay speakingka luqadda Englishka ku hadalkeeda. Maanta waxaynu ku kafargarayn doonaa casharkan 3 conversations, 3 wada hadallo. Erayada iyo weerooyinka aynu ku isticmaali doono macnahooga iyagoo gaar ahna waxaynu ku dhigan doonaa lesson 7. Inta aanad lesson 7 u gudbin casharkan insha Allah si fiican ula soco, conversationadan si fiican u dhageyso, insha Allah wayna ku anfici doonaan. Wixii aanad fahmin comment sectionkaadii ku soo qori amaba waad ila soo xiriiri toos nambarkayga wada haysiin badankiin. Hi Selma, conversation 1. Hi Selma. Selma waan ku salaamay. How are you? Satai. Just fine. Waan fiicanahay. And you? Adiguna? I'm pretty well. Pretty well. Pretty well. Aad baan u fiicanahay. Pretty here means very, very. Aad baan u fiicanahay bay ka dhigantay macnaheedu. By the way, have you heard about Hawa? Hawa warkeeda ma maqashay? Hawa wixii ku dhacay ma ku soo gaadhay warkeedu? No, Maya. What happened to her? Maxaa ku dhacay iyada? She has had a car accident. Shil gaari ayay gashay. She has had a car accident. Oh, how awful. Waa arrin aad u foolxun. Waa arrin aad looga naxo. Awful means very bad. Very, very bad. When did it happen? Shilku goormuu dhacay? When did it happen? Shilku goormuu dhacay? I think the day before yesterday. I think waxaan u maleeyaa the day before yesterday. Daraad. She is still in hospital. She is still in hospital. Iyadu weli dhakhtarka ayay ku jirtaa. Which hospital? Dhakhtarkay ku jirtaa. Khalid's hospital. Dhakhtarka Khalid bay ku jirtaa. Okay, waayahay. I'll send her some fruits. Waxaan u diri doonaa waxoogaa khudaar ah. I'll send her some fruits. Waxaan u diri doonaa waxoogaa khudaar ah. That's a splendid idea. Splendid idea. Taasi waa fikrad aad cajiib oo wanaagsan. She will like that. Arrinkaasi iyada aad buu cajibin doonaa. Conversationkaas wuxuu ahaa conversation aad isticmaali karto marka aad qof bad news aad siinayso. War xun markaad qof aad siinayso ayaad u isticmaali kartaa conversationka. Hadda waxaynu gudbaynaa the second conversationka labaad. Conversationka labaad waxaad isticmaali kartaa when you are giving a good news to someone. War wanaagsan marka aad qof siinayso ayaad conversationkan isticmaali kartaa. Warka wanaagsan ee conversationkan aynu ku eegi doono waa qof baa ilmo yar dhalay. Waa war fiican. Ilmo nagu soo kordhay. Waa war fiican. Waa good news. Waayahay. Labada waxa loo gudbiyaa isku si baa loo gudbiyaa. Hadallada way ku yar kala duwanaan doonaan. Did you hear about Hannah? Hannah warkeeda ma haysaa? Conversation 2. Did you hear about Hannah? Hannah warkeeda ma haysaa? Wixii ku soo kordhay Hannah maad maqashay? No, I didn't. Maya, maxaa dhacay? What's the matter with her? Iyada maxaa ku dhacay? Maxaa ka khaldan? She has had a baby. Ilma ayay dhashay. She has had a baby. Ilma yar bay dhashay. Really ma runtaaba? How nice. War fiican baad sheegaysaa. When? Goormay dhashay? The day before yesterday. Daraad ayay ilma dhashay. Was it a boy or a girl? Ma wiil baa mise gabadh? Was it a boy or a girl? Ma wiil baa mise gabadh? I think waxaan u maleeyaa it's a girl. Gabadh ayay dhashay. That's great. Waa arrin aad u fiican. War fiican baad sheegtay. That's what she wanted. Taasi waa waxay rabtayba. Isn't it? Miyayna ahayn? Yacni ilmo gabadh yar inay dhasho miyayna rabin iyadu marka horeba? Yes, it is. Waa wixii ay rabtay. What are they going to call her? Magacay loo bixinayaa. Magacay u bixinayaan. Waxay u bixinayaan Selma, I think. Selma ayaan u malayn in ay u bixinayaan.